Saleebaan Xasan Xaddi maayirka magaalada Boorama oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay mid kamida wadooyinka isku xiri doona xaafadweynta Shaacali Jawhar iyo xaafadda Axmed Guray oo burbur fara badan oo ka muuqday kadib ku sameeyay dib u habayn iyo casriyeyn ballaaran wadadani oo maanta si rasmi looga hirgeliyay jidlaamiya ayaa hadaba ugu horreyn waxa ka warbixiyay injineerka dawladda hoose ee magaalada Boorama waxaanu halkaasi ka sheegay wadadan waxa isku xidha xaafadda Shaacali Jawhar iyo magaalada inteeda kale wadadani waxay ku dhacay maxaadaanay deterioration wax la yiraahdo googo fara badan waxay caqabad ku noqotay inay degmada Shaacali Jawhar ay ka xidhnaato magaalada qaybteeda kale marka fadilaa alxamdu gudoomiyaha iyo maxaadaanay councilka dawladda hoose waxa noo suura galay inaan maxaadaanay maanta dhigno labadii laayarba wadadan cabirkeedu waa 500 mitir waxaan dhigi doonaa laba laayar ka hore waxaan dhigaynaa 1.7 liter per square meter laayarka dambana 2 liter per square meter geestiisa gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin dheer ka bixiyay jidkan laamiga ah ee maanta ay hirgeliyeen waxaan priority-ga siinay baahidii bulshada aanu mas'uulka ka nahay magaalada inteeda kale iyo wadadani way kala go'naayeen runtii xaafadda Shaacali Jawhar laakiin maanta waxa alxamdulillah sida halka ay ka muuqata waanu soo afjarnay waana dhamaystirnay maanta jeegii baa la dhigayaa waa wadadii labaad ee weeyga gudihiisa aan dhamaystirno sidoo kale maayirka magaalada Boorama waxa uu ka hadlay qashin qubka magaalada oo ay magaaladu gaadhay waxaanu sheegay in dib u habeyn lagu sameyn doono waxa noogu xigi doona baahiyaadka bulshada markaan ka turjumayno waa godkii qashinka oo magaalada gudaheega noqday way waad ogtiin qashinku dhibaatooyinka uu leeyahay waxaan rajaynaynaa isaguna inuu buweega noo bilaabmo haddii Ilaahay yiraahdo jidkana haddii aad ka caban jirteen awal ayna xaafadda Shaacali Jawhar iyo guud ahaan bulshada reer Boorama waan idin dhamaystirnay baahidii aad ka cabanayseen waanu ka jawaabnay waana waajibna saaran idinkana waxa la idin farayaa inaad ilaashataan oo laga ilaaliyo biyaha wasakhda leh ee lagu soo dareerinayo in laga ilaaliyo loo baahan yahay waa wadaha halbowlaha runtii biyahani dhibaato u keenaan dadkeenu ma qiimeeyaan biyahaas dhibaatada leeyihiin laakiin waxaan uga digaynaa inay dadkaasi dhibaateeyaan cidda biyo ku shubta ee la ganaaxo hadhow yaana soo caban wadada dhaqaalaha galay dhaqaalahaasuna wax fudud ma aha runtii dhaqaale badan baa naga galay runtii waxaanan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo wadada afraad ee nimanka u gudbaynaa inay noqoto ta isku xidhaysa bacadlihii hore iyo xaafadda Faaraxiyo ta isku xidhaysa inay noqoto oo 2 kiiloomitir iyo badh ah oo meesha ugu muhiimsana aad iyo aad maasantiin waxa leenahay horumarkan ka wada shaqeyno cashuurtana hala bixiyo isku soo duubo labadii toddobaad ee u dambeysay waxay noqonaysaa wadadani laamiga wadadii labaad ee uu hergeliyo maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo kaashanaya xogeyihiisa fulinta dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka 7 casho ka hor bay ahayd markii si rasmi ah loo hergeliyay wadada weynayaduna dhex marta xaafadda nafaqada ee magaalada Boorama Hussein Ataya Jama Hussein Gafne telefishinka caalamiga Universal TV Boorama